ayadoo dalka uu wajahayo saameynta abaaro ba'an oo ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah dalka isla markaana ay sii kordhayaan xaaladaha caafimaad iyo kuwa bini'aadanimo ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan muhiim ah oo lagu taakuleynayay dadkay abaartu saameysay. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyagoona ciwaan uga dhigay taakuleynta abaaraha dalka, waxaana ka soo qayb galay khubaro caafimaad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Luul Maxamuud Maxamed oo aan wareysanay ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixisay ujeedada guud ee barnaamijka iyo sida dadka markaasi taakuleynta lagu gaarsiin karo. kulankan horta waxaa qabtay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed sida la ogahay ururka dhakhaatiirta waa urur ay ku mideysan yihiin dhammaan bahweynta dhakhaatiirta ujeedooyinka loo aasaasaa marka hore wuxuu yahay in ay iskaga warqabaan dhakhaatiirta iyo in ay kaalmeeyaan walaalahooda Soomaaliyeed markay u baahdaan markay noo baahan yihiin oo abaaraha iyo markay jiraan iyo fatahaadaha arrimaha oo xaaladaha degdega markay dhacaan ururka dhakhaatiirtu mar walba wuxuu leeyahay qayb ka mid ah qaybihiisa shaqeeya ayaa waxaa ka mid ah in uu ka jawaabo markay dhacaan xaaladaha degdega tan horta marka laga hadlayo dhaqaale aruurin anaga waxyaabo aan qaban doono waa waxyaabo kala gedsan waxaa ka mid ah dhaqaale aruurin waxaa ka mid ah inaan dadka gurmad u fidino inaan caafimaad dhaqaalahaas wixii ku bixi lahaa inaan ka shaqeyno dhaqaalaha xaggee laga aruurin dhaqaalaha laga aruurin qof kasta oo Soomaaliyeed ayaa mas'uuliyadda oo dhaqaale aruurinta iska leh marka abaar dhacdo caafimaadka waa isku xiran yihiin marka abaar dhacaan maxaa imaanaya qofka waxaa ku dhacaya cuntada inay ku yaraato inuu waayo nafaqadii oo u baahnay marka waxa ugu badan oo imaanaya waa nafaqa darro kadib markay nafaqa darro dhacdo waxaa hoos u dhacayo difaaciisa wuxuu weynayaa markay abaar jirto biyo u cabo biyuhu waa nolosha markuu biyo waayo wuxuu cabi doonaa biyo aan wasakh ah nadiif ahayn ayadana cudurro ka dhalanayaan. Maryan Ladan Xuseen, Bilan Media, Muqdisho.